salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacanoo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga miidiya. Qodobada ugu waaweyn ee warkeenaan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah dad badan oo ku talinaya in madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda maxkamad la saaro ka hor doorashada madaxweynaha. Kulan lagu kala tegay oo ay yeesheen Siciid Dan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada Puntland. mid ka mid ah saaxiibada madaxweyne Farmaajo oo shir xasaasi ah ka furay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ilhaan Cumar oo bahdishay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulana talisay inuu barto luqadda Ingiriiska iyo Ruushka oo adeegsaday hub weligii dunida aan lagu arag, arrintaa oo cabsi hor leh dunida ka abuurtay. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay, nagu soo biir, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga, like dheh muuqaalka, garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad ku share garayso ayaan kaa rajeynaynaa. waa maalinimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 20 bisha maarso sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena. aynu ka hormarnay aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa soo jeedinaya in la maxkamadeeyo xilligan madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda oo ay ku eedeeyeen dambiyo fara badan inay geysteen 5 sano aynu ka soo gudubnay. Professor Xasan Sheekh Cali oo ka faalooda siyaasadda dalka ayaa wareysi uu uga hadlayay arrimo xasaasi ah oo quseeya xaaladda guud ee dalka. waxa uu ku soo jeediyey in marka ugu horeysa ay tahay in la qaado 2 tallaabo oo muhiim u ah badbaadinta dowladnimada Soomaaliya. Dr. Xasan Sheekh ayaa soo jeediyey in marka ay dhammaato doorashada ay tahay in marka ugu horeysa maxkamad la geeyo dad loo haysto falal dambiyeedyo kala duwan oo ay galeen 5 sano aynu ka soo gudubnay. doorashada socota haddii ay dhammaato waa in dadka galay dambiyada ee haddaay sheegayay in ay weli dhuumanayaan in la qabto oo la marsiyo xukunkooda. doorashada socota waxa ay tahay mid si aan wanaagsaneyn ku dhacday, laakiin ma aha inay baxsadaan kuwii dambiyada geystay ayuu yiri. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray, micnaha aniga ma dhahayo dadkaas waa dambiilayaal, hala qabto, hala xiro, hala dilo, maya. waxaan leeyahay maxkamad hala geeyo si loo ogaado eedeynta loo haysto. Professor Xasan Sheekh Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa si gaar ah u eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa siyaasadda, isagoo ku tiriyay dambiyo kala duwan oo ay galeen 5 sano aynu ka soo gudubnay. golihii shacbiga Soomaaliya oo la kufsaday, dadkii guryahoodii lagu dilay, Jubbaland oo la dulmiyey, iyo weliba dhibaatooyin kale oo midii Baydhabo ay ka mid tahay. muwaadin Soomaaliyeed oo loo dhiibay dalka Ethiopia, madaxdii hore oo la weeraray. dadka intaas galay waa in maxkamad la saaro si cadaalad ay u dhadhamiyaan. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay haddii aan la qaadin tallaabooyinkaas islamarkaana aan la aadin dhanka sharciga aysan Soomaaliya noqon doonin dowlad rasmi ah sida uu hadalka u dhigay. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa 5 sano aynu ka soo gudubnay hoggaankeeda ay wajahayeen eedeymo kala duwan. eedeymahaas oo inta badan dadka mucaaradka uga imaanayay, iyadoo professorka uu ka mid yahay dadka sida weyn u dhaliila siyaasadda madaxweyne Farmaajo. kulan lagu kala tegay ay yeesheen odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega Puntland iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani, kaasi oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka. warar soo baxayay saacadihii ugu dambeeyay ayaa sheegayay in khilaaf xooggan oo ku saabsan doorashada golaha shacabka Soomaaliya uu ka dhex qarxay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo isimada gobolka Nugaal ee beesha Ciise Maxamuud. isimada ayaa la sheegay inay ka careysan yihiin boob ay Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ku sameeyeen kursiga golaha shacabka ee tirsigiisa uu yahay Hoob Eber 29 oo beesha Ciise Maxamuud ay lahayd, islamarkaana lagu doortay magaalada Kismaayo. kursigan ayaa waxaa loo xiray Axmed Maxamuud Jaamac oo ah saxafi ka tirsanaa warbaahinta Jubbaland, islamarkaana iminka ka mid ah howlwadeenada madaxtooyada Jubbaland, daacadna u ahaa Axmed Madoobe. iyadoo kursigaas markii loo xiray Axmed Maxamuud Jaamac, odayaasha qaar ay isku dayeen in dib ay uga celiyaan, laakiin waa ay ku fashilmeen. wararka qaar ayaa sheegaya in Suldaan Saciid Maxamed Guraase uu isaga baxay magaalada Garowe, halka Islaan Ciise Islaan Maxamed isna la sheegayo inuu ka baxayo magaalada, islamarkaana kulankii uu ku soo dhammaaday fashil.
sidoo kale maalin ka hor waxaa Garowe isaga baxay isimo uu hogaaminayo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo ka soo jeeda beesha Cumar Maxamuud kadib markii Saciid Dani uu ku boobay kuraasta golaha shacabka ay ku lahaayeen si cad, iyadoo kuraastaas tirsigoodu ay kala tahay Hob 198 iyo Hob 199. Ismada Puntland ayaa u soo jeediyey madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani nidaamka uu wax ku wado inuu wax ka bedelo, laakiin inta badan waxa ay ku eedeeyeen in madaxweynaha uu ka dhaga fureystay. Mid ka mid ah saaxiibada madaxweyne Farmaajo ayaa shir xasaasi ah wuxuu ka daahfuray gudaha caasimadda Muqdisho xilli xaalad kala guur ah lagu jiro. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka sii socda shir uu furay maamulka xakamaynta hubka iyo rasaasta ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada Soomaaliya shirkan si toos ah u fududeynayo socodkiisa. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, hay'adaha qaabilsan amniga dalka, mas'uuliyiin ka socday madaxtooyada qaranka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha, wakiilo ka socday dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, xubno ka socday saaxiibada beesha caalamka iyo dadka kale ee daneeya amniga Soomaaliya. Shirkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa lagu lafagurayaa dadejinta iyo dardargelinta hirgelinta qorshaha qaran ee maamulka hubka iyo rasaasta, tirikoob, diiwaangelinta, calaamadeynta, suntidida iyo xakamaynta hubka yaala gudaha dalka ayaa sidoo kale laga wada hadlayaa. Agaasimaha xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada Soomaaliya Marwo Safiya Xasan Maxamed ayaa ka warbixisay ujeedada shirka iyo guulihii laga gaaray habraacyada maamulka hubka iyo rasaasta, iyadoo la raacayo wareegtadii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo saaray 2018. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur, cadaaladda Mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda Mudane Cabdulaahi Cali Qaloocow oo hadal ka jeediyey shirka ayaa soo bandhigay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xakamaynta hubka iyo rasaasta, iyadoo dadaal badan lagu bixinayo arrintaas. Sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay xilligan in cunaqabataynta hubka laga qaado, islamarkaana shirkan markii uu soo idlaado ayaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaya oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya xilligan iyo hubkaba waxa uu xambaarsan yahay. Ruushka ayaa baqdin badan dunida geliyey kadib markii hub weligii aan la arkin uu adeegsaday xilli dagaalo culus uu ka wado gudaha Ukraine. Ruushka ayaa jimcihii adeegsaday gantaaladiisa cusub ee aadka u dheereeya, kaasi oo ugu magac daray Kanzal, waxaana la doonayay in lagu burburiyo kayd dhulka hoostiisa ah oo lagu kaydiyo gantaalada iyo rasaasta kuna yaala galbeedka Ukraine. Goobta la weeraray ayaa u dhow Romania oo ah dal xubin ka ah xulafada NATO, waxaana tani ay falanqeeyayaashu ku sheegeen inay tahay markii ugu horeysay taariikhda dunida oo la beegsado hubka caynkan ah ee dhulka hoostiisa lagu qariyo. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa warkan xaqiijisay Sabtidii shalay, waxaana ay timid maalintii labaad oo 24 saac gudaheed ah ay Ruushku gantaalo aan caadi ahayn ay ku garaacayaan halkaasi. Ukraine ayaa u muuqata in dulqaadka uu ka sii dhammaanayo, wax garab ahna aysan helayn, islamarkaana hogaamiyaha dalkaasi ayaa dhex ordaya caasimadda Kiev isagoo dhiirigelinaya cid kasta oo hub qaadi karta inay dalkaasi difaacdo. Ruushka weligiis ma qarin in uu dagaal u isticmaalay hubkan saxnaanshiyaha marka la eego xogihii horey loo diiwaan geliyey, waxaana wakaaladda wararka ee RAI magaceeda loo soo gaabiyo ay sheegaysaa in madaxweyne Vladimir Putin si kalsooni leh uu u leeyahay hubkan khatarta leh. Waxaan ugu talagalnay inaan ku soo afjarno kuwa diidan dimuqraadiyadeena iyo shacabkeena nabadgelyadooda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in nidaamka gantaalaha ee Kanzal oo wata gantaalada hawada sare ee burburiyey baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ku yaalay ay ku kaydsanaayeen gantaalo iyo weliba rasaas halis ah, waxaana ay sheegeen in goobta ay si weyn u sahmiyeen oo ay bartilmaameedkooda saxeen. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa gantaalkaasi ku tilmaamay mid tayadiisu aad u sareyso oo ku duuli kara xawli aad u badan, 10 laab marka la eego hubkii ay adeegsanayeen tan iyo markii dagaalka ay ku galeen bartamihii Febraayo dalka Ukraine.
ruushka iska caabin aad u xoogan ayuu kala kulmayaa qaybo badan oo ka mid a dalkaasi, islamarkaana dadka aqriya arrimaha falanqaynta dagaalada dunida waxay leeyihiin ruushku waxaa hadda dan ay ugu jirtaa inuu soo afjaro colaadda dalkaasi uuna u jihaysto dhabaha nabadda. guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka Haga Media ayaad ka daawanayseen. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanidin.